midgaan unbaa qariya taariikhda maadhibaanka reerka ugu laadheerisan Soomaaliya oo weliba qoomiyad ahaa oo dhulkas ka leh taariikh la'aan ma hayso ku diiniya iyo ku maadiba haddaan ka bilowno ka maadiga guumaystii Talyaaniga ka yaabay markii uu ka eriyay reer miyiga magaalooyinkii oo kuwii kala adoonsaday uu dhahay war waa maxay kuwan maadhibaankan oo san hareen oo magaalada ka joogeen oo soo galaya marka la hadashina waran kugu dhufanaya oo la baqeenba oo markii dambe Talyaaniga faraha ka qaaday oo garowsaday inay ku yihiin native-kii kuwii dalka asalka iska lahaa oo canshuur la'aan markay doonaan suuqa soo galaan waxay doonaan ka sameeyaan kuna iibiyaan markay doonaan ka baxaan geesinimadoodana marnaba lagu darsan xitaa ciidan shisheeye oo iyaga kaliya isku dhex jireen markay u baahdaana wax laayaan markay u baahdaana heshiiskooda ka soo baxaan balse dacaayadda raqiiska laga sameeyay dadka sida sharafta u haysto ugaarsanaya oo sandalooyin iyo boqorooyin lahaa oo taariikh lahaa oo history lahaa oo lagu soo koobay inay yihiin reer galangaaba ayagoo hadda ah qoomiyadan inay bakti cuneen mareerkaas baa kuulaag inay bakti cunaan oo hadda xilligii Ingiriisiga iyo Talyaaniga ba ganacsigooda adduunka iyo meel walba ka kala wadeenba waxaase dhab ah oo san dacaayad ahayn oo cadeemo loo haya inay Itoobiya dhan qeyrin cunto inay Soomaaliland ku heesaan kuna faanaan inay SNMtu hilibka maska oo qeyrin ka cuni jireen inay jabahadahaas oo dhan oo la dagaaltamayeen xilligii dawladda Siyaad Barre dhammaantood ba u gaarsan jireen qoryahooda ay ku sita hilib qeyrin inay cuni jireen meelna gaabyo noqdaan sababta kaliya dacaayadda lagu dhajiyay waxa way markii ay Kusheetigu ee dhulka soo degeen ee maqleen inay dadkan hadda meesha jooga maadhibaanku ee daciifeen oo yaraadeen oo la rabo in dhulkii laga xoogo laga boobo waxay noqotay in dacaayad loo sameeyo sabab lagu qabsado dhulkooda laga la wareego adduunkii baana loo xaqiijinay inay maadhibaanku ay ku ahaayeen dadkii meesha iyo ku waligood badanaa jireen oo iyagu ay yihiin dadka dhulkas ka leh sababta kaliya Soomaalida xilliga Kusheetiga markay soo degeen dhulkan iyo ku xoolahoodii wata ee san u leen maadhibaanka waxa weeye waxay hore u ogaayeen inuu Ilaahay halaagayba markii ay maadhibaankii Ilaahay nimcadii uu siiyay ugaarsigii iyo wixii ganacsiga khatarta ku ahaayeen ee dadka ku qiyaameen inuu laayo oo in yar kaliya Ilaahay ka baqay soo reebay iyakana u baahan yihiin Kusheetigu dad khibradda iyo aqoonta ay haysteen kala faa'iideystaan bulshadana la dhisaan oo ku dhex milma iyaka ayagoo tixgelinaya inuu dhulkan yahay dhulkii ilaahiyada ee u yaqaan luqadda buntiga laakiinse la oran jiray dhulkii maadhibaanka ama maadhiba Ilaahay baa Quraanka noogu sheegana inuu si nimco kaliya ku barwaaqay maadhibaanka uu siiyay xataa nabi iyaga ka dhasha oo ku yiri Ilaahay ka baqa dadka markaad u miisaamaysiin si cadaalad ugu miisaama oo yuusan Ilaahay niqaabina sidii uu qoomkii nigu horeeyay xataa uu iqaabay balse maadhibaanka kibirkoodii isla weynadoodii ka yeersiyay inay ku dhahaan Shucayb walla inaan waxba aad sheegisaan ka fahmeynay haddii aad sareerkan aan naqaano oo sharafta u qabno aad ka dhalan lahayn dhagax ayaan kugu leyn lahaynba balse markay kufurka iyo khiyaamada ka joogi waayeen Ilaahay baa go'aansaday inuu dhammaantood balaaya in yar mooyaane oo Shucayb uu kala badbaadiyo meeshaas oo hadda ilaa haddana jiraan meeshana waxa ka soo qayb galaya Nabi Muuse dadka dhihi doona hadhow dadkan Carbaha ama Yuhuudda sheegatay anagu ma sheegan karno xilliga hadda Carabta waxa ahayn ummiyi wax allaale oo nabiga loo diray ma jirtaba Yuhuudda ama Bani Israa'iil waxa lagu guumaysanayay wali Fircoon gacantiisa Masar balse haddaan ku laabano Nabi Muuse oo xilliga isaga ka baxsanaya xukunkii foosho xumaa uu ku qaban lahaa Fircoon oo laha Ilaahay iga badbaadi dadkan hadda halaaga oo markaa hadda u jeedsaday meesha kaliya ee loo bixiyay bunti micnaheeduna tahay dhulkii ilaahiyada oo laakiinse Midian dadka degana Midian oo Ilaahay uu leeyahay xagga lacala inaan ka helaa badbaado Ilaahay ilaa waba dhulkii ilaahiyada midgaana inuu sida Soomaaliya magac iyo dhul u noqonayo waxa ku cadeynaya Nabi Muuse markii la yiri dhulkii Midian uu tagay uu xagga ku joogay muddo dheer ilaa intuu badbaadadii kaga baxsanayay Fircoon oo Ilaahay waxyiga siinayay waa dhulkii midgaanta ama Midian ee Quraanka lagu xusay sharafta iyo quruxda gabdhaha midgaan mid aniga adiga aan ka warami karnaa ma ahe Nabi Muuse baa ka waramaya markii uu guursaday uu ku raacay quruxda iyo sharafta iyo karaamahaas ee reerka leeyihiin cadaaladda iyo sharafta ilmadoodan waxay ku sheegaysaa markii ay gabdhahaas ee ceelka biyaha ka dhaaminayeen inaasan lagu xadgudbin la kufsana ragga iyo odayaashooda gartagooyga waxa lagu tusayaa inuu Ilaahay ku aaminay Nabi Muuse inuu odaygaas gabadhiisa ku daro una muddo la joogo dadkaas weeye dadka la dhaho maanta midgaan dadkaas way dadkaas ka leh dalka Soomaaliya dadkaas ma ahan reer yar waa qoomiyadan oo Quraanka lagu xusay oo nabiye ka dhashaan nabiye dhalana nabiyaashina hooyaya nin walba isku laandheereysay inuu Macrobian yahayna ha ogaado inuu taariikhankii Greega magaca Macrobian uga jeeday dad cimri dheer da'doodu 120 gaarayso sidoo Ilaahay bana ugu xaqiijiyay Quraanka inay maadhibaanka Madiansku lagu itixaamay markii dambe cimri aad u weyn oo dheer oo fog qof walba maangaaba oo laangaaba videoga intuu la bukoodo la seexdo isagoo barkaraayuusan cidna u dirin laandheero walbana ha qaybiyo ha sheer gareeyo videogan xaqiisana ha soo saaro